saaxiibadii ku xifaartamay Banooniga ugu dambeyn isdilay isla markaana la soo tabiyay geeridooda. soo dhawaada daawadayaal, waxaan la wadaagi doonaa dhacdadan caawa ka dhacday degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan. dhacdo xanuun badan isla markaana murugo badan ayaa caawa waxay ka dhacday degmada Jallaqsi. laba kooxood oo ka kala tirsan xaafadaha degmada Jallaqsi, xaafad lagu magacaabo Kumari iyo sidoo kale xaafada kale ee lagu magacaabo Cabdullaahi Eji. labadaas kooxood oo tartan banooni xifaartan adag ka dhaxeeyay ayaa ugu dambeyn waxay sababtay in mid kamid ah kooxihii labada kooxood ee isku baxayay mid kamid ah dhalinyaradii aad u carooday kadibna ciyaarta markay dhamaatay waxa uu soo qaatay qore waxauna dilay mid kamid ah saaxiibadii ka soo horjeeday xifaartanka ba'an ee Banooniga oo ku dhaxmaray xaafada Kumari iyo sidoo kale aaga xaafada Cabdullaahi Eji oo dilka uu ka dhacay. inta lagu jira salaada maqrib ayuu wiilkan dhalinyarada intuu carooday saaxiibkiisii Banooniga aad ugu xifaaltameeyay kadibna ka soo badiyay caradii oo ka soo qaaday ugu dambeyn waxa uu nafta dhaafiyay saaxiibkiis. dhalinyaradan waxay dhamaantood ku wada noolaayeen degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan, waxayna noqotay dhacdo argagax leh isla markaana hadalheen badan ka dhalisay bulshada halkaasi ku nool. weli ma cadda in gacanta lagu dhigay ninkan dhalinyarada ah ee saaxiibkiisii dilka u geystay kadib markay ciyaar soo dhamaatay care uu ka qaaday oo dilka ugu geystay. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan laamaha ammaanka oo goobta ku soo baxay in ay weli baadigoob ay ku jiraan wiilkan dhalinyarada ah ee saaxiibkiisii caawa ku dilay xaafada Cabdullaahi Eji aageeda ee isla markaana degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan. dilkan ayaa waxa noqonayaa mid ku cusub isla markaana dhegaha inta badan dadka heer Hiiraan ay aad ula fajiceen kadib dhalinyaradii sportska maadaama waa sportska meesha kaliya dhaxgalka ka jiro isla markaana xifaaltankii ka soo dhashay caawa mid kamid ah nafta lagu dhaafiyay isla markaana ay noqotay geeri xanuun badan dadka halkaas ku nool ay aad u hadlayaan. weli kama hadlin maamulka degmada Jallaqsi sidoo kale kan gobolka Hiiraan iyo guud ahaan maamulka Hiirshabeelle dhacdada caawa ka dhacday degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan. 3 caruur ah ayaa dhanka kale waxa la soo warinayaa miiga degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud isla markaana hal hooyo iyo hal aabe ay wada dhaleen walxaha qarxa in ay halkaasi kula qaraxday. hal kamid ah ayaa dhaawaca, labada kalena waa ay geeriyoodeen. qoyska ayaa aad uga naxay dhacdada ku timid caruurtooda kadibna waxaa loo qaaday midkii dhaawaca mid kamid isbitaalada ku yaala degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud. wararka qaar ayaa intaas waxay ku sii darayaan in caruurtaani ay ku ciyaarayeen walxaha qarxa isla markaana aqoon badan ay u lahayn kadibna birarkii ay isku garaaceen. ugu dambeyn waxaa sababtay laba kamid ah inay ku geeriyootay caruurtii walaalaha mid kamidana uu yahay dhaawac daran sida wararka qaar aan ku helayno. inta badan walxaha qarxa ayaa caruurta Soomaaliyeed aad ugu ciyaaraan iyagoo aan aqoon badan u lahayn xitaa dadka waaweyn, waxaase ka dhalato dhimasho iyo dhaawac. weli kama hadlin dhacdada caawa ka dhacday degmada Xeraale miigeeda ee gobolka Galgaduud, maamulka degmada iyo sidoo kale kan guud ahaan ee Galmudug.